السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحول الجنة كمركل السود رمضان وارد ماذا ما نحنا بري ولا عيد يا ما نحنا كلي meelaha qaar waxaan arkay berri waa laga soomayaa oo soddonka ayaa la dhammaystirayaa anaga weli soonkii ayaan ku jirnaa oo qoraxdii nooma dhicin inta ciidaysana ciid wanaagsan ayaan leeyahay inta soomanna waxaan leeyahay ajir Allah naga siiyo ramadaankii aan soo soonnay muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago qoraal madaxweyne Trump oo saaka bartiisa Truth Social-ka uu ku soo qoray ayaa waxa uu muuqdaa in uu ugu hanjabayo Iran in nuclear uu loo isticmaali karo waxa uu leeyahay bal ka warrama haddii aan dhammaystirno inta ka harsan dowladda argagixisada ah ee Iran oo su'aal uu gelinayo bal arrintaasi maxay micnaheedu noqon kartaa waan idinla wadaagaya Mareykanka u muuqdo in uu qasaarihiisa qarinayo kadib markii uu sheegtay in askarta ka dhaawacantay ay 200 ay hadda kor u dhaafayaan Iran weli waxa ay wadaa duqeyntii ay duqeynaysay Israa'iil iyadoo xalay ku weerartay bamamka kala furfurma markay hawada soo galaan ee cluster bombka oo Israa'iil ay sheegtay 2 qof inay geeriyoodeen safaaradda Mareykanka uu ku lahaa caasimadda waddanka Ciraaq ee Baghdadna sidoo kale waa la weeraray marinka Hormuz Mareykanku waxa uu bilaabay in bamamka dhulka hoostiisa godadka ku yaala ee bankariska in burburiya inuu u isticmaalo buuraha ku hareeraysan marinka Hormuz si uu sheegay meelaha gantaalada Iran ay uga soo tuurayso maraakiibta halkaasi maraysa ay u burburiyaan isla markaana Iran ay wayso meel ay gantaalo ay ka soo tuuraan waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa shaxda ka hor inta marinka Hormuz aysan Iran xirin oo dagaalka uusan bilaaban imise markab ayaa mari jirtay ilaa iyo markii uu bilowdayna imise markab ayaa martay sidoo kale dhimashada ama nolosha ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu weli muran weyn ayaa ka taagan muuqaalkii ugu dambeeyay isaga iyo safiirka Mareykanka u fadhiya waddanka Israa'iil Mark Huckabee ay soo wada duubeen ayaan sidoo kale aan idinla wadaagaya balka waran diyaar ma u tahay dhalashada Mareykanka inaad iska celiso haddii aad doonayso dhalashada Mareykanka inaad iska celiso wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay yareysay lacagta laga qaado dadka doonaya in dhalashada Mareykanka iska celiyaan arrintaasina sidoo kale waxaan ognahay maalintii 19aad inuu galay dagaalka Israa'iil iyo Mareykanku ay ku qaadeen Iran waxa wali socda markaa Iran wali waa ay dagaalamaysaa walow la dilay hadda mas'uuliyiintoodii inta ugu badnayd sida aad arkaysaan hadda madaxda Iran laga dilay oo dhinaca militariga u badan ilaa iyo 16 ay gaarayaan waxa ugu dambeeyay wasiirka sirdoonka oo Israa'iil ay maanta sheegtay Ismaaciil Katiib oo ay dishay shalay waxaan ogeyn xogayihii guud ee amniga qaranka Cali Laarajani iyo ninkii madaxda ka ahaa ciidamada basiijka oo qaabilsanaa gudaha waddanka Iran waxyaabaha ka dhacaya in ay aamusiyaan in la dilay marka waxaad arkaysaan laga soo bilaabo hogaamiyihii sare in Ayatollah Ali Khamenei ilaa iyo mas'uuliyiintan kala duwan oo ilaa iyo hadda marka lagu daro wasiirkan sirdoonka uu noqonayo ilaa iyo 16 in Israa'iil iyo Mareykanku duqeymo ay ku dileen intooda badanna ay Israa'iil dishay Trump maalin dhawaad waxa uu yiri xitaa ma garanayno cid aan la hadalno maxaa yeelay dadkii aan naqaanay dhan waa dilay ayuu yiri marka yaan la hadalna dadka xitaa na soo wacay waxa ay yihiin ma naqaan ayuu leeyahay sida asaga uu leeyahay walow Iran ay leedahay anaguna xabad joojin ma aanan dalban wada hadalna ma aanan dalban laakiin Trump sidaas ayuu leeyahay qoraalkan ayaa Trump bartiisa Truth Social saaka uu ku soo qoray waxana uu u muuqdaa inuu dadka weydiinayo bal ka warrama haddii aan nuclear u isticmaalno Iran oo inta ka harsanaan dhammaystirno qoraalkiisu wuxuu yiri waxaan la yaabanahay waxa dhacaya haddii aan dhammaystirno waxa ka harsan dowladda argagixisada ee Iran macnaha maxay noqon kartaa marka hadda maxaa Iran ka harsan wali waa ay dagaalamaysaa Soomahan in isbedelkii ay doonayeen inay sameeyaan regime change wali ma uusan dhicin xitaa sirdoonka Mareykanka waxa la leeyahay qiimeynta uu sameeyay waxa ay muujinaysaa in dowladda Iran aysan qarka u saarnayn inay burburto shalay aniga arkayna ninkii dowladda Mareykanka u qaabilsanaa waliba Trump isagu uu magacaabay oo dowladda Mareykanka u qaabilsanaa waaxda qaranka ee la dagaalanka argagixisada ninka la yiraahdo Joseph Kent inuu iscasilay oo yiri sababta aan isku casilayna waxay tahay dareenkayga ima siinayo inaan ka sii mid ahaado dowladdan dagaalkan dulmiga ah wado oo sheegay in Iran aysan marnaba qatar degdeg ah aysan ku ahayn Mareykanka isla markaana Israa'iil ay ku cadaadisay Mareykanka inuu dagaalkan galo arrintaasi oo Trump ninkii uu magacaabay uu yiri markii horeba ninkaas nin caqli badan ma uusan ahayn marka hadda waxa muuqanaysa marka in Trump qoraalkiisa uu ku leeyahay bal ka warrama haddii aan dhammaystirno inta ka harsan dowladda Iran
macnaheedu waxay tahay ma nuclear aan u isticmaalnaa oo ma baabi'inaa macnaha way dhiman la'yihiin weli waa kuwan maalintii 19aad dagaalamayeen marka kadib waxa uu sii raaciyay markaasina aan ku wareejino ayuu yiri wadamada in mas'uulna aan uga dhigno waxa loogu yeeray marinka Hormuz maxaa yeelay waxa uu yiri wadamadan waa diideen inay ka soo jawaabaan oo xulafada NATO ayuu ka hadlayaa dalabkeenu waa kuwii diiday inay ka soo jawaabaan marka aan dhamaystirno inta ka harsan Iran ayaga aan ku wareejino marinka Hormuz si ay u maamulaan arintaas marka kulay hadal sarbeeb ah ayuu u muuqdaa waatii la dhahay Israa'iil xitaa waxay qarka u saaran tahay maadaama duqeynta lagu wado habeen kastoo Iran ay ku wado aysan u dul qaadan karin in iyada nafsad ahaanteedu ay nuclear isticmaasho marka hadda Mareykanku waxa uu bilaabay marka inuu talaabo cusub qaado bamka la yiraahdo cluster bamka la yiraahdo buster bunkers oo godadka dhulka hoostiisa loogu talagalay inay baabi'iyaan oo ilaa iyo 5,000 oo pound gaaraya ayaa hadda waxa ay diyaaradaha Mareykanku ay bilaabeen inay ku duqeeyaan buuraha ku hareeraysan marinka Hormuz si loo burburiyo meelaha gantaalada ay ka soo tuurayso dawladda Iran oo maraakiibta halkaas sida xoog ah doonaya inay ku maraan doonaya inay burburiyaan shalay markabkii 17aad ayay Iran gantaal ay ku dhufteen marka ilaa dagaalku intuu bilaabmay 17 markab ayay weerareen bal shaxdan ila fiiriya dagaalka ka hor intii uusan bilaaban hadda February oo kale 11keedii 169 markab ayaa maalin kasta mareysay marinkaasi hadda marka 12kii bisha la eego hal qof ma uusan soo marin waa bishan March 14kii hal markab ayaa soo maray 15kiina 3 markab ayaa soo martay kulay kuwaas waa kuwa iyagu ay u ogolaadeen oo ah wadamada cadowga sida Israa'iil iyo Mareykanka aysan ku sheegin marka marinku sidaas ayuu u xiran yahay waana marinka ugu muhiimsan oo 20% alaabta iyo shidaalka isaga goosha caalamku ay soo maraan marka hadda Mareykanku wuxuu leeyahay waa in aan marka buuraha ku hareeraysan aan baabi'ina Mareykanku qasaarihiisa uu qarinaya Israa'iilna sidoo kale waa ay qarinaysaa hadda Mareykanku ilaa hadda intuu qirtay waxay tahay 7 askari inay ka dhimatay 200 oo askari ay ka dhaawacmeen Iran sidoo kalena waxa ay wadaa inay duqeyso Israa'iil habeen kasta xalay maamulka cluster bombka la yiraahdo markii hawada soo galaan kala furfurma ayay ku weerartay Israa'iil waxay sheegatay 2 qof inay uga geeriyoodeen oo sida iyagu ay sheegtaan 1 qof iyo 2 qof ma dhaafaan safaaradda Mareykanku ku lahaa caasimadda Ciraaq ee Baghdadna waa taa iyadoo gubanaysa la arkay oo holcayso oo gantaalo ay ku dhuftay dawladda Iran amaba sidoo kalena maleeshiyaadka taageersan ee Ciraaq ka dagaalama saas marka Trump hanjabaadaasi marka ayuu sheegaya hadda uu leeyahay bal ka warrama haddii aan dhamaystirno inta ka harsan Iran kulay wuxuu ula jeedo lama garan karo dhinaca kale Netanyahu wali waa tan lagu muransan yahay ma nool yahay mise waa dhintay shalay waxa la yaab noqotay in safiirkii dawladda Mareykanka u fadhiyay Israa'iil Mike Huckabee uu muuqaal ay isla soo duubaan Netanyahu maalmihii u dambeeyay waa kii muuqaalo kala duwan soo duuboleeyay kuwan waa AI artificial intelligence ayaa lagu farsameeyay oo dadka ku takhasusay ay soo qabteen marasoo 6 farood leh marasoo faraantile marasoo lahayn marasoo jeebka gacanta isgelinayso waxyaabo kala duwan waa tii la soo qabtay hadda muuqaalkan marka safiirka dawladda Mareykanka u fadhiya in Israa'iil Mike Huckabee wuxuu leeyahay madaxweynaha ayaa soo diray balse aan u jeegareeyo inaad okay tahay in kale Netanyahu wuxuu leeyahay anigu okay ahaan way aragtaa aan 6 farood malihi waraaq ay soo bixinaya uu leeyahay waraaqdan 2 magac ayaan maanta ka dirnaa waa dilkii Cali Larajani iyo sidoo kale hogaamiyihii ciidamada basiijka wuxuu leeyahay kuwa kalena waan ka tari doonaa marka Mareykanka siday noo garab taagiin Iran laga hor istaagay inay bam nuclear yeelato oo marka Israa'iil ay baabi'isay kadib magaalooyinka Mareykanka ay u jeesato waxa uu leeyahay waa ku faraxsanahay in Mareykanku ay garab taagiin marka muuqaalka naftiisa waxyaabo fara badan laga arkay maxaa madaxa Mike Huckabee safiirka Mareykanka oo nuuxsanaya iyo sidoo kale kulay dadka ay ku taqasus waxyaabo fara badan ay soo qabanayaan bal muuqaalkan wax yar la daawado Prime Minister, I wanted you to know the president asked me to come and make sure you were okay. Yes, Mike. Yes, I'm alive. I checked that and I'm happy to see that, but he wanted to make sure because you know, you guys get along too well. I know, and we shake hands with 5 fingers in each hand, you know, but I have to tell you, I'm alive, but I have this card. Oh. And, yeah, don't read it. So, it's a punch card. Mm-hmm. Today, I erased 2 names on the punch cards, and you see how many more to go on this batch. You know what the good news is? My name is not on the punch card. Your name is on the list of the good guys. Thank you. And what the president, the U.S. forces are doing is incredible. We're very proud to stand shoulder to shoulder with them.
and getting rid of these lunatics who'd like to develop nuclear weapons and the means to deliver them to every American city after wiping out Israel. They ain't going to do that. We're wiping them out. I love it. Thank you, Mr. Prime Minister. Good to see you. Thank you, Mike. Thanks. Take care. Thank you. ugu dambeyntii ma doonaysaa dhalashada Mareykanka inaad iska celiso haddii ay jawaabtaadu ay haa tahay dowladda Mareykanka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay 80% hoos ugu dhigtay dadka doonaya in dhalashada Mareykanka iska celiyaan lacagta laga qaado lacag ayaa laga qaadaa qofku haddii uu doonayo in dhalashada Mareykanka uu iska celiyo oo uu ka tanaasulo markii hore waxa ay ahaan jirtay lacagta laga qaadayo qofku markuu dhalashada Mareykanka iska celinayo $2,350 marka hadda waxa laga dhigay $450 oo kaliya lacagtan dadka soo codsanaya markii hore sanadkii 2015 ayaa la bilaabay sida darteed waxa hadda dowladda Mareykanku ay leedahay waxaan doonaynaa inaan lacagtaas raqiisino si dadku ay haddii ay doonayaan dhalashada Mareykanka inay iska celiyaan qofku process dheer ayuu marayaa markuu doonayo dhalashada inuu iska celiyo interview ayaa laga qaadayaa oo kuwa qoraal ah iyo sidoo kale kuwa afka ah markaas kadib wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ogolaansho siinaysa qofkan dhalashada in loo ogolaado inuu iska celiyo iyo in kale sidaas darteed waxa ay dowladdu leedahay hadda ilaa iyo markii la bilaabay sanadkii 2015 sanadkii 2023 qof ayaa soo codsatay in dhalashada ay iska celiyaan laakiin wasaaradda arrimaha dibadda ma aysan sheegin inta qof oo ay u ogolaadeen in dhalashada ay iska celiyaan marka haddii aad doonayso in dhalashada Mareykanka aad iska celiso tira Mareykan waa iga dhamaatay waxa lacagtii waa la yareeyay $450 ayaa laga dhigay lacagta laga rabo inaad bixiso halka markii hore $2,350 ay ahaan jirtay waxa leeyahay group fara badan ayaa u ololeynayaba dadka doonaya in ay dhalashada iska celiyaan oo wasaaradda arrimaha dibadda inay lacagtan ay ka yareyso marka arintaasina waxaan rabay inaan idila socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta nabadgelyo